mustaqbal af Soomaaligiisa waxa waa guur uma malaynayaa mustaqbal waxa lagu yiraahdaa af Soomaali waqti dhow waxaad sheegtay halkii ugu horeysay laga taagay taalada caanka ah ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waata waan joognaa marka bakhayl wallaahi allahumma salli ala Muhammad wax ma bixiyo uma dhix kar laha ninkaas nin wax bixiya maaha way Soomaaligeena nin wax bixiya maaha waa nin xajisto un hadiya jeer runtii waxaan wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba aad joogtaan iyo marba inta ay soo dhawaado kuna soo dhawaada barnaamijka weydii waliba hodma show oo idinkaga imaanaya xarunta Soomaaliya galbeed ee magaalada Jigjiga wax walba markii la abuurayay waa kuwa ka soo bilowday hal goob iyo hal fikir miyaad garanaysaa halkii ugu horeysay laga taagay talada caanka ah ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan barnaamijka hodma show Jigjiga idinkaga imaanaya aad kaga bogan doontaan su'aashaas iyo kuwa kale oo ka dhex guuxaya maskaxda ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka hodma show magacayga maxaa carab ayaa la yiraahdaa waa tahay su'aasha ugu horeysan ku weydiiyay waji af Carabi af Soomaali ma garanayo bakhayl waa af Carabi af Soomaali ku sheeg bakhayl waa af Carabi saas waa af Carabi ku yahay waa af Carabi laakiin af Soomaali luqadeena ku sheeg luqadeena af Soomaaliga ma garanayo asaga garanaysa halkii ugu horeysay laga taagay taalada caanka ah Sayid Maxamed Cabdilla Xasan sheeg taalada Sayid Cabdilla Xasan waxa laga taagay xamar waa tahay adeer ku soo dhaw barnaamijka hodma show magacaaga isha Ibrahim Madar Marraleyd waa tahay miyaad garanaysaa halkii ugu horeysay laga taagay taalada Sayid Maxamed Cabdilla Xasan wallaahi sidaa uma garanayo beenan sheega mooyaan waa tahay erey baan ku weydiinayaa af Carabigiisa aad loo isticmaalo af Soomaaligiisa baad ii sheegaysaa erey baan ku weydiinayaa af Soomaaligiisa af Carabigiisa af Soomaaligiisa aad ii sheegaysaa waa tahay bakhayl maxaa lagu dhahaa af Soomaali waxa lagu yiraahdaa bakhayl xoolale bakhayl ninka hebel waa bakhayl baa la yiraahdaa waa af Carabi sama waa af Carabi sama ninkaas nin wax bixiya maaha way Soomaaligeena nin wax bixiya maaha waa nin xajisto un hadiya jeer waji maxaa lagu dhahaa af Carabi wajiga wallahi Carabiga ma aqaano beenan sheega mooyaan Soomaaligiisa ma af Soomaalka waan garanayaa laakiin waji isha waji waa waji waa erey af Carabi asalkiisa af Soomaaligiisa maxaa lagu dhahaa waji waji waa af Soomaal Soomaha waji waa af Carabi inaguna waxaan idhaa waxaan idhaa waa waji rasmiya maxay kula tahay Ibrahim Baladhown waxaad sheegtay halkii ugu horeysay laga taagay taalada caanka ah ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waata waan joognaa noo sheeg waa halkan Jigjiga ugu horeysay waa tahay mustaqbal af Soomaali maxaa lagu dhahaa mustaqbal af Soomaali maxaa lagu dhahaa dhaqan baa lagu dhahaa waji maxaa lagu dhahaa af Soomaali dhaban baa lagu dhahaa bakhayl ma Soomaali ama Carabi bakhayl waa af Soomaali erey Soomaali aad isticmaasho laakiin asalkiisu af Carabi bal waxa lagu dhahaa af Soomaali noo sheeg bakhayl waxaa lagu dhahaa af Soomaali ma tahay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka weydii waliba hodma show magacaaga Cabdirashiid Aadan Roble waad mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa inaad igala qayb qaadato barnaamijkan qiimaha badan bal waxaad noo sheegtaa halkii ugu horeysay laga taagay taalada caanka ah ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan taalada Sayid Maxamed Cabdilla Xasan halkii ugu horeysay laga taagay waxaan jeclahay inay Muqdisho ahayd aad mahadsan tahay bal su'aalaha kale aan kugu gudagalnaa haddaad ku guulaysato abaalmarin baad leedahay bal waji waa af Carabi af Soomaali maxaa lagu dhahaa waxa lagu dhahaa waji af Soomaali fool bakhayl maxaa lagu yiraahdaa af Soomaali dabcaal mustaqbal maxaa lagu yiraahdaa af Soomaali mustaqbal waxa lagu yiraahdaa mustaqbal waxa lagu yiraahdaa af Soomaali waqti dhow abo soo socda ya ayaa lagu yiraahdaa
runtii su'aalo si qurux badan baad naga qaybqaatay barnaamijka waad mahadsan tahay laakiin kuma waayahay adiga mudan waa tahay hore ayaa idinkugu sheegay barnaamijka hodman show inuu galabta xiise gooniya xambaarsan yahay xurmo oo ah hal abuur ayaa ka mid ah galabta martida hodman show soo dhawow waan dhowahay aad baad u mahadsan tahay hodman show su-aasha ku weydiiya halkii ugu horreysay ee laga taagay taalada caanka ah ee sayid maxamed cabdulle xasan haddii aan isku dayo su-aasha halkii ugu horreysay ee laga taagay taalada caanka sayid maxamed cabdulle xasan caasimadda ummadda soomaaliyeed muqdisho allahu akbar waa tahay bakhayl waa af carabi asalkeeda bal af soomaaligeeda noo sheeg bakhiil af soomaali dhabcaal malahayga su-aasha labaad aan kugu daraya mustaqbal maxay noqonaysaa af soomaaligeeda mustaqbal ma garanayo su-aasha mahadsantahay kaaga mahad celinayaan barnaamijka hodman show miyaad garanaysaa halkii ugu horreysay laga taagay taalada caanka ah sayid maxamed cabdulle xasan meesha ugu horreysay laga taagay taaladii sayid cabdulle xasan waa xamar aad u mahadsan tahay su-aasha kale mustaqbal maxaa lagu dhahaa af soomaali mustaqbal baan kuu fasiraa miyaa wuxuu yahay macnaha af carabi laakiin waa eray aad loo isticmaalo laakiin soomaaligiisa bal waxa la dhahaa noo sheeg mustaqbal af soomaaligiisa waa guur uma malinaya su-aal kale aan kuuga celinayaa bakhayl maxaa lagu yidhahdaa af soomaali taas waa af carabi weeye balka aad baa loo isticmaala laakiin bakhayl af soomaali noo sheeg midka qacanta adag baa lagu yaqaanaa waa tahay ku soo dhawo barnaamijka hodman show magacaaga والله معي فؤاد عبدي بدل weji waa eray af carabi ah laakiin soomaali ahaan loo isticmaalo midka asagoo soomaaliya bal noo sheeg اراي كعلي weji af soomaali maxaa lagu dhahaa weji وجهي في عربي معناها في عربي ما كنت شغال saas af carabi ku yahay laakiin bal af soomaali noogu sheeg في صومالي في صومالي دي وجهي ما واقع عني ها بس mustaqbal af soomaali noogu sheeg mustaqbal مستقبل في صومالي يقوم الشيء يصادم يا carabi laakiin waa la isticmaala laakiin saxdiisa iyo asalkiisa af soomaaliga aan rabnaa ايوه انا والله استعمالها ها su-aasha labaad baan ku weydiinayaa ama saddexaad aan dhehe bakhayl maxaa lagu dhahaa af soomaali bakhayl بخيل في صومالي والله بخيل ده وقف معناه الله يسمع حلو قوين كويس كفر بدينهن لكن كل جاچا هان والله يسمع قف مركو يهي قف دي جعان ادو جاچا ولا اسكا قف كسوا جاچا معناه maxaan ku dhahay qof de wax bixiya ma aha gaajo weeyaan qofkaas inaga daayo wala dhaha marka aan intaas u qaan waxaan noo sheegtaa halkii ugu horreysay laga taagay taalada sayid maxamed cabdulle xasan halkaad u malaynayso ani wallahi shay horta su'aashaas way ugu adag tahay su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay halkii ugu horreysay ee laga taagay taalada sayidka waa magaalada Jigjiga waxay ku taallaa santarka magaalada Jigjiga berigii hore waxa la oran jiray hal laami bay lahayd markii labada laami laga dhigay baa halkan laga dhigay meesha ay eeg uu ku yaalo sayid maxamed cabdulle xasan hal su'aal oo kale ayaan kugu daray adoo mahadsan bakhayl maxaa lagu dhahaa af soomaali qacan adke waa tahay mustaqbal maxaa lagu dhahaa af soomaali waa eray carabi mustaqbal laakiin af carabi soomaali maxaa lagu dhahaa mustaqbal aayo kale aan ku weydiinaya weji maxaa lagu dhahaa af soomaali weji waxa lagu yiraahdaa de waa weji kulley baan sidaan ku soo gaadhay waa inta aad mudan waa tahay nasariin oo ah gabar aad u daayar hal abuur ah isla markaasna ah wariye farta ka xiran oo aad u daayar ayaa galabta kamid ah ka qayb qaatayaasha barnaamijka hodman show nasariin farxad iyo tayran kugu soo dhaweeyay barnaamijkayga soo dhawow waa dhawaay hodman aniga qudhayda farxad bay tahay mar kale channelkaaga soo muuqdo waa tahay nasariin su-aashan ku weydiin waxay noqonaysaa waxaad noo sheegtaa halkii ugu horreysay ee laga taagay taalada caanka ah sayid maxamed cabdulle xasan hodmanay sayid maxamed cabdulle xasan taariikhdiisa dabcan waxaan filaynaa cid kasta iska garanayso waxaan rajeynaya inay ahayd magaaladii ugu horreysay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa tahay su-aasha labaad haddaan kugu daro mustaqbal waa eray af carabiya af soomaaligeeda asalkiisa maxay noqonaysaa aayahaaga ka war hadii mustaqbalkaaga ka war weeye marka aayay noqonaysa su-aasha saddexaad aan kuugu daray adoo aad u mahadsan aan mar walba kuu mahad celinayo maxay noqonaysaa erayga bakhayl af soomaaligiisa bakhayl waxa weeyaan waa dhabcaal weeyaan haa aad baad u mahadsan tahay in badan ayaan ku mahad celinaya guulayso haye hawna magacaaga ku bilow maxamed yunis su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaya waxay noqonaysaa halkii ugu horreysay laga taagay taalada caanka ah sayid maxamed cabdulle xasan muqdishoan malaynayaa in muqdisho mustaqbal waa eray af carabi ah af soomaali maxaa lagu yidhahdaa
yool ayaan malaynayaa yool haye waa tahay bakhiil asalkeedu waa eray carabiya laakiin soomaalida aad ay u isticmaasho af soomaali maxaad u malanaysaa inay tahay bakhiil horta wallaahi ereygaa soomaaliaan baan ku maqlaa laakiin soomaali wuxuu noqonayo garamaya taase aad baad mahadsan haye walaalmastans ay waa taadina magacaaga ani magacayga waxa la Cumar Reer Cabdi soo dhaweynaya waad mahadsan tahay su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo halkii ugu horeysa laga taagay taalada caankaasi maxaa Cabdillah Xasan allahumma salli ala muhammad sida aan filayo ama anigu aan aaminsanahay xamar inay ahayd baan jeclahay su'aasha kale su'aalaha kale u gudbaynaa adoo mahadsan mustaqbal waa eray af carabiya af soomaali maxaa lagu dhahaa mustaqbal waa waqtiga inagu soo wajahan bay ka dhigan tahay waqtigeena soo qaabilsan ama waqtiga inagu soo wajahan inta lafteedu waa carabi waqtiga soo socda ayay noqon kartaa waqtiga soo socda future ya xilliga soo socda Soomaalidu erayga la yiraahdo magaciisa bakhiil waxa asalkiisa waa carabi laakiin Soomaalida way Soomaaliyeed way isticmaalaan bal bakhiil af Soomaali maxaa lagu dhahaa af Soomaali horta af Soomaali gabigiisuba waa collection waa wax la isu geeyay waa qaraf moogtay carabi waa ku tish weeyaan carabi buu ka kooban yahay hindi baa ku jira maxaa marka bakhiil wallaahi allahumma salli ala muhammad wax ma bixiyo uma dhixi kar laha wax ma bixiyo magacaaga ii sheeg axmed saadiq faarax turtur su'aal baan ku weydiinayaa ama su'aalo dhowr aan dhehe saad uga jawaabtana waa kuwa bulshadu ka faa'iideysanayso halkii ugu horeysay taalada Sayid Maxamed Cabdillah Xasan laga taagay xamar erayga mustaqbal waa eray af carabi ah af Soomaaliga maxaa la yiraahdaa higsi طبعا bakhiil waa af carabi af Soomaali maxaa lagu dhahaa mid gacan duuban lagu dhahaa gacan duubne gacan adag ruux gacan adag baleeda halkan ku daraa ma tahay su'aasha kale waxay noqonaysaa mustaqbal waan ku weydiisaa okay waji maxaa lagu dhahaa af Soomaaliya waji waa carabi miya waji waa af carabi af Soomaali waji maxaa lagu dhahaa okay waji waxaa lagu dhahaa food lagu dhahaa food ku xilka food lagu dhahaa food aad u mahadsan waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan inta ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka xiisaha badnaa ee idinkaga imaanayay xarunta Soomaali galbeed ee magaalada Jigjiga anigoo Hodman Cabdi Gela ayaa idinla socodsiinayay su'aalihii aan weydiinay bulshada qayb kamid ah dadka qaar ayaa ka jawaabay bal idinkuna commentigiina fikradiina nagula wadaaga intaan ku kulmayno barnaamijka xigeenka ka tagnaa saasi nabadgelyo waxaan si khaas ah ugu mahadcelinayaa injineer Nuruddin iyo waliba sidoo kale walaalkii wariye Gamaadiid oo barnaamijkan gacan muhiim ah iga siiyay ama ay salaantood baan idin soo gudbiyeen Soomaalida nabad iyo dawladnimo. Assalaamu calaykum.